بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu joognaa magaalada Ceelbu oo ka mid ah gobolka Sanaag. aniga magacayga waxa la yiraahdaa Ismaan Cabdi Mataan. waxaan ahay odayaashii marna deegaanka ah marna ka soo guuray hawd, laakiin markii hore ka hayaamay degmada Dhahar. markii hore waxaan ka hayaamay degmada Dhahar hawdka xirxir baan reeraha ka soo hayaamiyay. dabeedna waxaanu nimid Ceelbu, magaalada Ceelbu dadka waa lagu soo dhaweeyay. ogaa cawsa baa loo soo raacay dunaa loo yaqaan. haddana roob yar baa ka daay dhulka oo goosgoosa. alxamdulillaah rabbil caalamiin, ilaahay ma hadaale. annagu xamdinaq baan baan u naqaynaa. ilaahay ma had iska leh. dhulka nabadgelyo ka jirta guud ahaan. dayrtu waa cusbaatay. intaanu ka warhayno abaar fadhigu ma badna. xooluhu cunno badan haddii maanta kuma ay haystaan. haddii waddankuna dirindiir ba hadda gashay, naqi hadduu isha keenay xooluna ay markaas ay afka dhigeen, dirindiir ba gashay. insha allahu iyada roob baa ka qaada la oran jiray, daad baa qaada, daad ha ka qaado. nabadgelyaduna waa si fiican bay uga jirtaa waddanka. magaalada Ceelbu hadda aan kala hadlayo aan ragga ku soo hayaamay ka mid ahayna waxa weeye haddii magaalo Soomaaliyeed weeye. ummadda waa wada joogtaa, waa lagu soo hayaamay. naqii hore ugu horeeyay feeraswan ayaa lagu soo guuray. haddana hareeradu waa buuxaan. ilaahay baa xamdiga leh. abaarta Allah ina ka saaraan leenahay. ummadanu waxay ku baahay baxda baryada Ilaahay iyo wixii Ilaahay siiyo. laakiin wuxuun oo haatan cidii wax shaqaysanaysa iyada garanaysa maanta badan bay leedahay. kaliya maamulka Puntland baan u baaqayaa. maamulka Puntland baan u baaqayaa maadaama ka mid ah odayaasha Puntland. maamulka Puntland waxaan leeyahay abaaru waa dhici jireen, laakiin ummaddu waxay heli jirtay caawimaad. tacaawunu cala albirri wattaqwa. ummaddu maamulka Puntland boqolkiiba 90 ogaa xagga caawimaadiisa waa la dhaliilaa. inkastaana iyaga laftigoodu haddii baashu ka baaxad weyn tahay. maamulka intaasaan leeyahay. xaaliga xaajada Allah inoo suubiyo. cirkana madar khayr qaba Allah ina ka siiyo. inaas ummaddu mar haddii nabadgelyana haysato si fiican weeye. waxa weeye dadku Soomaaliya caad raac weeye. xoolaha reer guuraagu hadda meesha lagu sheegay buu aadaa ilaa raas Kambooni ilaa raas Casayr. dhulkan awalna dhugii waa laga hayaamay oo waxa loo hayaamay Nugaal iyo Hawd. haddana ummaddu waa socotaba isugu timi. deegaanaba ka mid ah waa la wada joogaa. meel kastana waxa weeye haddii wax raqab waa ku rageedo oo kolley anagu hawdkaan tagnayna rag fiican oo tulabaan u tagnay. gaar ahaan anigu meesha la dhumay baan deganaan jiray iyo xirxir si fiican baan la ku soo dhaweeyay. haddaanu nimid Sanaag gaar ahaan magaalada Ceelbu darafka anigu aan ka warhayona saas oo kale ummadda lagu soo dhaweeyay biyo iyo baad. dhaqanka Soomaalida ama reer guuraaguna waxa weeye isaga wuxuu tilmaamaa wado isaga u jeexa oo khad bay iska leeyihiin. raasinka in la wada qaato, la wada cuno, biyo la wada dhaansado. ninkii magaalo jooga oo muddo karna uu soo dhaweeyo. Soomaaliya iyada waxay tahay professionalkeeda wixii inay isku hoos nooshahay. horumar badan bay ku gaartay. gaar ahaan Sanaag waxay aad ugu tayacaan. waxa weeye kala hore markii geelaj ku soo hayaameen oo geelasha Mudug iyo Nugaal iyo Soomaaliya ka soo hayaameen. haddii geelajii baa la waraysan karaa. marka meel kasta oo Soomaali weyn joogto saas oo kale ayay waxay u tahay hanti wadaag. gobolladana Sanaagna aad bay ugu sii fiican yihiin. laakiin xagga maamulada boqolkiiba 99 baashu waa ka jiiftaa. xagga booqashada, xagga tabarucaadka, ay shay xagga caafimaadka. maamulada horta waa in qolada tifiyada waxaan ka codsanaynaa warka maamulada waxaan sii ma gaarsiin waxun baa naga duubta miiga naga wareysataan oo bal madaxdana u bandhiga. madaxda loo bandhigo taasna waa maamulkan uu la hadlayaa. laakiin reer miyigu gobolka Sanaagna adeeta Sooriyo iyo soo dhaweyn iyo hadii ilaahay ku yahay qaabilaad yaani waxa oran kara lambarada hore ayuu ku jiraa. inkastoo Soomaaliya qaybta reer miyigu ee isku hoos nooshahay haddii sidaa weeye hadal nin badiyana kama wada tagin nin yareeyana waxay nin badiyana ma wada nin yareeyana kama wada tagin. inaasan ku soo gabagabeyn lahaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runta cilmi baaris iyo horumarinta hadaf